xisbiga mucaaradka ah ee u ciidaya aqbalay murashaxnimada Axmed Khaliif Jaamac Saalax oo tartamaya golaha wakiilada Somaliland kana sharaxan gobolka Sool. Munaasabaddan oo lagu qabtay xarunta xisbiga u ciiday Hargeysa ayaa ugu horeyn wax halkaasi ka hadlay odayaasha murashax oo ugu horeeyo Garaad Muuse Cawli Jaamac, oday Jaamac Xeef, Axmed Faarax Ruuse oo dhamaantood sheegay inay isku raacsan yihiin murashaxnimada Axmed Khaliif Jaamac Saalax. Anagu waxaan nahay odayaashii beesha Yoonis Ismaaciil wax oo ka tirsan Sool. waxaan wadnaa oo hore loo shaaciyay Axmed Khaliif Jaamac Saalax oo hore loo shaaciyay. waxaan doonaynaa gudoomiye ninka inaad markaa naga qabato oo hore loo shaaciyay oo beesha uqaashu la socoto oo suldaanku la socdo oo hawlihiisu ay sidaa ku ansaxsan yihiin. ninkaas waa Axmed Khaliif Jaamac Saalax ninkaan isku raacnay. gudoomiye waxa isku raacay uqaasha gobolka Sool Yoonis Ismaaciil iyo garaadka suldaanku waa naga maqnaan Ingiriisku jiray Suldaan Cali Cumar laakiin wakiilkiisii baa joogay. markaa waxaanu wadaa maanta inaad naga aqbasho shaacintiisuna way horeysay 3 bilood baa loo fadhiyay ninkaas la isku raacay. markaa gudoomiye aad baanu kugu mahadnaqaynaa qaabilaadii hore aadna qaabishay. maantana waxaan diyaar u nahay inaad naga guddoonto musharaxa Axmed Khaliif Jaamac Saalax. waxaan halkan ka akhriyayaa odayaashii cuqaashii iyo garaadadii soo doortay Axmed Khaliif Jaamac Saalax. waxaa ugu horeeya Garaad Muuse Cawli Jaamac, Sheekh Caaqil Yuusuf Cabdi Mataan, Caaqil Maxamed Yiriye Ganaac, Caaqil Maxamed Mahdi Shire, Caaqil Cali Askar Maxamed, Caaqil Xamse Siciid Yirin, oday Warsame Ismaaciil Gaani, oday Saleebaan Cali Dari, oday Aadan Shire Ciro, abwaan Cabdi Caateeye, oday Axmed Goox Sugule, oday Cabdirashiid Cawad Dheel, oday Maxamed Cawad Cali. waa ku odayaashii soo doortay murashaxa gobolka Sool ee golaha wakiilada Axmed Khaliif Jaamac Saalax. Axmed Khaliif Jaamac Saalax oo isagu u sharaxan golaha wakiilada Somaliland ayaa isna halkaasi ka sheegay inuu rajaynayo inuu tartankaasi guul ka keeno. doortay inaan musharax u noqdo golaha wakiilada soo koob iyo 30 bisha insha Allah ma dhici doona. waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan dadka deegaankayga ah ee ii gartay inaan u noqdo musharax insha Allah doorashada soo socoto. insha Allah haddii Ilaahay xilkan igu guuleeyana 3 waxyaabood baan ka shaqayn doonaa hadduu Alla idmo. marka hore inaan ilaaliyo oo aan difaaco dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. mar labaadka inaan danaha iyo siyaasadda xisbigayga aan ku shaqayn doono insha Allah. marka saddexaad oo iyana ah inaan dadka deegaankayga danahooda gaarka ah oo aan ka shaqayn doono insha Allah tacaala. halkan kama ballan qaadayo inaan wax dhisi doono oo aan wax wanaagsan qaban doono, laakiin ujeedada aan la ii dooran doono ee aan ka shaqayn doono waxa weeye inaan meesha ay taladu taalo iyo meesha midida daabkeedu taalo inaan dadka deegaankayga insha Allah fariimahooga gaarsiiyo, baahiyahooga gaarsiiyo ayaan ka shaqayn doonaa insha Allah. waxaan kaloo rabaa inaan halkan si gaar ah ugu mahad celiyo dadkii ila shaqeeyay ee igala shaqeeyay markii u horeysay igala shaqeeyay in dad badan aan diiwaan gelino. waxaan kaloo u mahad celinayaa dadka isla waqti xaadirkan hadda oo aan halkan joogo ka shaqeynaya in kaarbadal dadka loo sameeyo. dadkaas oo Hargeysa laga qaaday oo laga soo qaaday gobolka Sanaagna laga soo qaaday tan hawshoodu ilaa imka ay socoto. marka aad baan ugu mahad celinayaa dadka insha Allah. waxaan mar kale aan u mahad celinayaa gudoomiyaha oo ii ogolaaday inaan chance ii siiyay maanta inaan maxay toleen hawsha anta aan ku jirnaa aan bilaabno insha Allah. dadkaygana waxaan ka rajaynaynaa doonaa inay dooran doonaan ay cod badan siin doonaan. ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u ciiday Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa aqbalay murashaxnimada Axmed Khaliif Jaamac Saalax. waxaanu yidhi aad baan ugu faraxsanahay inaanu maantana aqbalno, horena waan u aqbalnay, maantana aanu la shaacino Axmed Jaamac Saalax. أحمد هو من متعلمة وضدك دون إن شاء الله تعالى إنه حسبك مهنت أنا كشرحنا وباهن إنه ضلكنا أي هرمر كيانا. أحمد أنا جي أبيسكو لما أبي كلاس بيجوري waxaan waa dadkii marna wasiirka noqday Somaliland waxa
marka family wuxuu ka soo jeedaa mutacalimiina ayuu ka soo jeedaa isagana waad aragtaa inuu durba garanayo xildhibaanka magaranaysa waxa weyn u ilaaliyo waxa weeye dastuurka jamhuuriyadda ilaaliyo waa ka carabka ku dhuftay waxaan ogaadinaa inuu Axmed Hargeysa ku barbaaro malaha Hargeysa marjeex baa uu ka cod badnaan lahaa baan siin markii la iga sheekeeyay inuu iska sharxo marka waa nin dhalinyaro ah oo aad u soo shaqeeya way caan ka ah insha Allah taala saan hore u sheegnay maanta waxa lagu kala baxaya saddex xusbi dadka keenan ay badka keenan ayaa u kala footeynaysa codayn doonta qabiil maanta ma jiro waxa loo codeynaya wariyaa dalkan keeni kara horumar yaa keeni kara ummadan mideyn kara yaa cadaalad keeni kara yaa ixtiraaf keeni kara ayaa maanta lagu tartamaya Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka Cable Hargeysa